dhaqaatiirta markay bukaanadu imaadaan su-aalooyin badan ayay weydiiyeen sida indhaha ma ku xanuunayaan, maxaad dareentaa habeenkii markaad seexatid, hurdadaada sidee tahay, cuncun ma jiraa, iyo su-aalooyin kaloo badan. su-aalooyinkaas dhakhtarka waxay ku saacidayaan in la gaaro daawada saxda ah ee qofka bukaanka ah. laakiin su-aasha ma noqon karto hal dhinac oo adiga laftirkaaga waxaa laaga baahan yahay in aad su-aalo weydiisid. muuqaalkan waxaan kugu soo gudbi doonaa su-aalaha loo baahan yahay inaad dhakhtarkaaga weydiisid si ay u saacido daaweyntaada. daawasho wacan. su-aasha koowaad ayaa waxay noqonaysaa, doctore xaaladan aada baartay magaciis. waa su-aal aada u muhiim ah, laakiin inta badan bukaanada ama asxaabta igala soo xiriira social media markaan weydiiye xaaladan aad qabtid magaciis, waxay leeyihiin doctor aniga waa u tagay, waxaasaan dareemayay, daaweyna isoo siiyey. laakiin waxaa loo baahan yahay inaad weydiisid xaaladan magaca uu leeyahay. waa su-aasha koowaad aad weydiinaysa doctorkaaga ayna muhiim ay tahay. su-aasha labaad oo inaad weydiisa ay tahay waxay tahay, xaaladan aan qabo dadka kale ma u gudbisii karaa? markii indhaha lasoo qaato kale, xaalada qaar waxaa jiro, tusaale ahaan daafo kale, waxaa jirto maalmo 4 ilaa 5 beri oo kale oo qofka u gudbisiin kara dadka la nool ama dadka uu gurigiisa kula nool. marka waa muhiim inuu qofka ogaado inuu xaaladan dadka kale u gudbisii kara in kale, si uu u helo waxyaabo uu kaga hortagi karo, sida nadaafadda uu aada ugu dadaalo karo. waxyaabahaas waxay ka hortagayaan dadka uu jecel yahay qofka bukaanka ama ku hareeraysan familigiisa inuu ka badbaadiyo xaaladan. su-aasha xigta ayaa waxay noqonaysaa, doctore daawooyinka ii soo qortay maxay u wanaagsan yihiin? dabcan waa su-aal cajiiba, laakiin waa muhiim. marka qaar waxaa suurtoobayso qofka markii uu ogaado daawooyinka uu qaadanayo waxyaabahay u fiican yihiin iyo daawo haddii daawo kale lagu bedeli karo, waxay aada u saacidaysaa bukaanka in uu daawo fiican helo. sidoo kale markuu dhakhtar daawo soo qoro, su-aasha saddexaad oo weydii kara waxay tahay, maxay tahay daawadan side effects ay leedahay? waa su-aal muhiim ah, sababtoo ah marka qaar qofka markii uu daawo qaato waxaa isku arkaya calaamadahaas si qofka uu walaac u qaadin in uu doctorka markiisa hore weydiiyo si uu u ogaado waxyaabaha uu dareemo. doctorka waxaa la joogtaa daqiiqado yar, wax walba kuuma sheegi karo. waxa muhiimka waxay tahay inaad adiga aada weydiisid si aad u heshid information buuxo. su-aasha kale waxay noqonaysaa, testiyadan ama baaritaanadan idiraysa muhiim miya? marka qaar baaritaano qaar oo doctorka uu dirayo ayaa laga yaabaa inaan qarashkeeda ay heli karin. si uu qofku u ogaado baaritaanada uu galayo sida u kala qarash badan yihiin ama baahidiisa u fiiriyo, waxay door muhiim ka ciyaari kartaa qofka in bukaanka inuu daawo sax helo. sidoo kale marka qaar daawooyinka qaar ama baaritaanada qaar oo aada u bato, marka qaar waxay sameyn karaan in qofki uu ku madax wareero kadibna uu dhex kaga haro. taas ayaa muhiim noqonaysa qofka baaritaanada laga qaadayo inuu ogaado waxa laga baarayo iyo meesha u wanaagsan tahay. su-aashaasna adiga ayaa weydiinayo doctorkaaga. doctore goormay kuu soo laabtaa? marka qaar waxaa dhacayso haddii waqti hore inaad soo laabatay rabo aad dib ugu dhacdo oo kale in xaaladan isbedel uu ku imaan karo. doctore xaaladan ila dirista, haddii qof aad jeceshahay ila dirisi lahayd maxaad sameyn lahayd? qofka waxay ka saacidaysaa xaaladan uu qabo in uu ogaado sida ugu fiican oo doctorka uu gacanta ugu qaban lahaa habka ay tahay, iyadoo laftirkeeda aada ugu qaboojinayso qofka bukaanka niyadiisa. sidoo kalena daawada qofka la daaweynayo ee qeyb muhiim ay ka ciyaari karto. su-aasha kale ayaa noqonayso, maxay tahay waxa loo baahan yahay inaan xoogga saaro? tusaale ahaan daawo ayaa lagu soo qoraya, caadi ahaan waa qaadanaysaa, daawadaada waa isticmaalaysaa, laakiin waxyaabo qaar haddii aad isku aragtid oo inaad xoogga saarto oo il gooni ah u lahaatid, ama haddii fifteen yar kaa soo baxayo kale ama sawir aad ka qaadaysid oo doctorkaaga marka aad u laabanaysa aad tusinaysid sidoo kale, waxyaabaha qaar oo inaad xoogga aad saartid loo baahan yahay in aad ogaatid intaa dhakhtarka usoo laaban ka hor. taasna waxay ku imaanaysaa inaad adiga weydiisid. su-aasha kale waxay tahay, oo aadan inaad ka cabsoon ahayn, doctore ma heli karaa qof la taliye ah? waa muhiim, sababtoo ah marka qaar waxaa laga yaabaa inuu doctor ku dhaho aniga la taliyo kuwa ah, ama qof kale oo markaa inuu ku tusiyo ama ku gudbiyo. taasna waxay door muhiim ka ciyaari kartaa daaweyntaada.
su-aasha kale oo ugu dambeyso oo muhiimka ah inaad doctoorka weydiisid oo inaadan ka cabsoon ee tahay marmarka qaar markii qof doctoorka xaalad kaa sheego in aad dhahdid doctore xaaladan wax khibrad ah ma u leedahay alla ilaahay markiisa fara laba mid ayuu kaaga jawaabi karaa inuu ku dhaho aniga khibrad badan uma lihi ama inuu qofka la kaashado doctor kale ama inuu ku dhaho xaaladan intaas oo khibradan ka leeyahay taasna waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa oo weliba inta badan loo adeegsado for example qaliimadoo kale oo intaasoo sano khibrad u leeyahay oo qofka bukaanka u doorta xitaa meeshii halkaa u wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay muuqaalkan wixii su-aalaha inkastoo aa ogtihiin inaad aada u jeclaha su-aalaha qaybta commenti ugu reeba waxaan idiin rajeeyay caafimaad iyo indhafayo